أصحابي سود بهذا أخبارنا حدلنا وإحنا نقصو قارت شركتها جلينك إيه بوليوودك مسلسلك علي بابا ترشيد جليسي تنوشا شرماء يا وحي اسكو شيء ماشي مسلسل كسعودي كدبنا waxa la geeyay isbitaal balse isbitaalka markii la geeyay kadib waxa la sheegay ayad inay dhimatay Tanusha Sharma waxay tirsha caan oo Bollywoodka laga wada yaqaan hatta filimka caanka ay faturo ayad qayb ay ka qaadatay sidoo kale gabadhan ayaa ahayd gabar jisha filmaanta yaraanteeda ayna soo bilowday balse iyadoo 20 jir ayay isdishay videoga maanta waxaan idinku tusayaa Tanusha Sharma cid ay tahay waayaheeda nololeed filmaanta meesha ay ka soo bilowday iyo heerkan maanta ayad ay gaarsiisnad qaabka ay ku timaaday iyo waliba nolosha nooca ayada ay ku nooleed marka si aad uga bogato videoga waa inaad daawataa yaana war idinku daalan videoga idin bilaabo oo noloshada saxda ka hadlaya magaceeda saxda waa Tanusha Sharma naanasteedan waxa loo yaqaanaa Tanu 4 January 2002 ayay dhalatay waxaana ku dhalatay magaalada Chandigarh da'deedana waxay ahayd 20 jir January 4teeda 2023 waxay jirsanaysaa 21 sidoo kale waxa la sheegay jiliinka inay bilowday da'deedu markay ahayd 14 sano waxayna ka bilowday mustalka lagu magacaabo Baratka Veer Putra Marana Bartab 2015 markii ahayd waxayna jilaysay door gabar yar sidoo kale 2015 waxay jilaysay mustalka lagu magacaabo Jagravartin Ashoka Samrat sidoo kale mustalkaas waxay ku matalaysay boqorada lagu magacaabo Hantara sidoo kale sanadii 2016 waxay ka soo muuqatay filimka caanka ee Bollywoodka lagu magacaabo Fitur waxayna ku matalaysay magaca lagu magacaabo Firdaus sidoo kale 16 waxay ka soo muuqatay filimka lagu magacaabo Barbar Deko iyo Kahani 2 isla sanadkaas waxay ka soo muuqatay mustalka lagu magacaabo Gambar Bonjawala sidoo kale 17 waxay ka soo muuqatay mustalka lagu magacaabay Shere Punjab Maharaja Ranjit Singh 2018 ilaa 2019 waxay ka soo muuqatay mustalka lagu magacaabay Internet Wala Love oo jecel ahaa 2019 ilaa 2020 waxay ka soo qayb qaadatay mustalka lagu magacaabay Ishq Subhanallah kadibna waxay ka soo muuqatay filimka lagu magacaabay The Bangi Tree oo toorka ah Salman Khan sidoo kale 2021 waxay ka qayb qaadatay filimka lagu magacaabay Hero Gayab Modon kadibna waxay ku jirtay mustalka lagu magacaabo Ali Baba Dastayani Kabul kadibna akhbaartana soo gaartay waxay tahay Anusha meesha jiliinku ka socday inay isku dishay sidoo kale 2021 ilaa 2022 Anusha waxay sameyn jirtay muuqaalo madadaalo ah sidoo kalena muusigiyo way sameyn jirtay ayada marka asxaabe commentiga noogu sheeg adinka maxad ka aaminsan idin gabadhan haddana asxaabe waxaan rabaa muuqaalkan idinku tusiyo Tanusha Sharma familkeeda Tanusha markii ay yareed aabeed waa uu geeriyooday aabeedan waa qofkan haddeertaan idin muuqda sawirkan idin muuqdana waa Tanusha Sharma hooyada dhashay sidoo kale Anusha wiil ayaa la dhashay magaciisa waxa la yiraahdaa Adesh wuxuuna ku nool yahay wadanka Canada sidoo kale xiriirkeeda markii aan ka hadalno anaga warbixin waxaan ugu soo gaartay inuu xiriirka la dhaxeeyay ninka la sameeyay taxanaa Ali Baba aktarka lagu magacaabo Shahzaan Khan haddana waxaan ka wada hadlaynaa ayada gurigeeda sida idin muuqataba Anushka waxay degneed Mumbai Maharashtra waxay la degneed ayada hooyadeeda waliba guri apartment ah sida in kaga muuqata sawirada hadeertaan haddii aan ka hadalno baabuurkeedana waxa uu ahaa nooca lagu magacaabo Toyota Fortuner waxaana laga soo bixiyay 35 laag oo ah lacagta India sidoo kalena gaari kale ayay lahayd sida hadeertaan adinka sawirka idin muuqda aad ka arkaysaan haddii aan ka hadalno lacagaha ayada soo galaya ama dakhliga kaleeysa mustalaadka waxa la sheegay halka xalqo musal ay duubto in ay soo galeysay 70,000 ilaa 80,000 lacagta rubiga ah musalsalka dhanna maahan ee waa xalqo walba oo musalsalka kamid ah intaas waxa u sii dheeraayay xayisiima ay sameyn jirtay xayisiimaasna 100,000 ay ka sameyn jirtay ayada hantida guud ee ayada heysata waxa lagu sheegay inay gaarayso 120 milyan oo rubi oo u dhiganta 12 milyan oo karoor marka asxaabe Anusha Sharma nolosheeda kooban waa intaas ka hor adiga haddii aad taqaanina arrinkaas waxaan ka codsanaynaa commentiga inaad nagula wadaagto fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad follow na soo dhahdo sidoo kale share tii laagtii commentiga inaad nagu dadaasho waadna mahadsantihiin